wasiir ku-xigeenka amniga ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay burburinta miinooyinka iyo walxaha qarxa. warkan waxaa inoo faahfaahinayaa wariyaheena Cabdullaahi Gacmo. madax ka socota wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayay baahida Soomaaliya u qabto ka hortagga walxaha qarxa si ay u fuliso waajibaadka ka saaran inay burburiso miinooyinka dhulka iyo walxaha qarxa maadaama dawladda Soomaaliya ay ka qayb tahay dawladaha saxiixa heshiiska Ottawa Treaty iyo caqabadaha hortaagan in laga dhigo Soomaaliya meel ka baxsan ama ka madax bannaan miinooyinka iyo walxaha qarxa iyo caqabadaha hortaagan in laga dhigo Soomaaliya meel ka madax bannaan miinooyinka iyo walxaha qarxa. shirkan oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse oo ahaa madaxa wafdiga Soomaaliya, safiirka Soomaaliya ee Switzerland Faadumo Cabdullaahi Maxamed iyo wafdi kale oo ka socda hay'adda miinooyinka walxaha qarxa ee SIMA ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galay shirka dawladda daneeya inay wax ka qabtaan Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah sida Netherland, Finland, European Union, Canada, Norway, UNDP iyo kuwa kale oo badan. iyadoo shirar gooni ah lala yeeshay hay'adaha kale ah UNMS iyo UNDP. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse waxa uu ka sheegay shirkaasi si loo gaaro in dawladda Soomaaliya ay noqoto meel ka madax bannaan miinooyinka sanadka 2022 in loo baahan yahay dardargelinta howlaha miinooyinka ee dalka, sidoo kale hay'adaha caalamiga ay la kaashan doonaan. sidoo kale waxa uu sheegay in wasaaradda amniga gudaha ay geyn doonto baarlamaanka sharciga miinasaarka ee dalka Soomaaliya iyo hay'adda SIMA. waxaa sidoo kale uu sheegay wasiir ku-xigeenka inay ka caawin doonaan dadka ku waxyeeloobay qaraxyada miinooyinka iyo walxaha qarxa.